Assalaamu calaykum. Waa qaybtii toddobaad ee barnaamijkeennii diiniga ah ee moogtahay ama hal taclam oynu xalqadana ku soo qaadan doona cashir aad iyo aad muhiim u ah kaa oo aan hadda ka hor idiin ballan qaaday inaan mar barnaamij dhammaystiran si fiican ugu faahfaahin doono. Waxaynu diiradda saari doonaa qaabkii ay qowmi Yuunus uga badbaadeen cadaabkii alla korkooda keenay iyo ciqaabtii lagu halaagi lahaa iyo weliba qaabkii cajiibka ahaa ee dhammaantood u wada rumeeyeen nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam sida ku cad qur-aanka kariimka ah. qaybtii koobaad ee barnaamijkeena moogtahayna aan ku sheegnay qowmi Yuunus waa qoomka keli ah ee rumeeyey rasuulkii alle u diray. sidoo kaleeto waa qoomka keli ah ee intuu alle subxaanahu wa tacaala cadaabkii lagu halaagi lahaa korkooda keenay haddana uu ku celiyey. waxaynu si dhammaystiran laakiin kooban ooga hadli doonaa qisadii nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam iyo qoomkiisa. kusoo dhawaada barnaamijkeena. ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. soo dhawaada mar kaleete. qowmi Yuunus waxay ahaayeen tiradoodu 100,000 oo ruux iyo ka badan siduu alle yidhiba wa arsalnaahu ilaa 100,000 aw yaziiduun. waxay degi jireen magaalo lagu magacaabo Naynawa oo ka tirsanayd ama hoos imaanaysay magaalada Muusil ee wadanka Ciraaq. ilaa iyo hadda magaalada Muusil waa magaalo jirta kuna taala dhulka Ciraaq, waxayna ka mid tahay magaalooyin ugu qadiimsan uguna magaca dheer. wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qowmi Yuunus kaga warramay qur-aanka meelo badan oo ka mid ah, waxaana ka mid ah suuratu Yuunus aayadda lambarkeedu yahay 98 iyo suuratu Anbiyaa aayadaha lambarkoodu yahay 87 iyo 88. iyo welina wuxuu alle si dhammaystiran oo faahfaahsan uga hadlay qisada nabiyullaahi Yuunus iyo qoomkiisa suuratu Saafaat aayadaha lambarkoodu yahay 139 ilaa 148. sidoo kale wuxuu alle kaga warramay suuratu Qalam ama Nuun dhammaadkeeda. markii nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam uu alle u doortay inuu xambaaro risaaladiisa qoomkiisana uu dacwada gaarsiiyo, wuxuu nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam u istaagay inuu fuliyo amarka Allah, wuxuuna dadkiisa ugu yeedhay tawxiidka Ilaahay iyo inay rabbigood adeecaan isagana ka baqaan. laakiin qoomkiisii waa ay ka jeesteen, dhagaha ayayna ka fureysteen. nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam aad ayuu iskugu dhabar jabiyey, meel waliba ayuuna ugu tagay, qaab waliba oo ay macquul tahay inay xaqa ku fahmaanna waa uu ugu sheegay. laakiin ma uuna kala kulmin ilaa wuxuu kala kulmay oo keliya aflagaado iyo cay iyo dhibaateyn sidii nabiyadii isaga la midka ahaaba ay oola kulmi jireen. wuxuuna alle yidhi kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun oo majnuun. maba jirto ummad alle subxaanahu wa tacaala uu rasuulu diray ilaa waxay ku lahayn rasuulkii waxaa tahay mid waalan oo majnuun ah oo sixiroola ah. marka nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam arrinkii ayaa ku dhacday, laakiin in muddo ah ayuu isku dhabar jabiyey, xataa wuxuu waayay hal qof oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisa ajiiba. aad ayuuna uga murugooday arrinkaa. markii dambe nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam wuxuu ku yidhi qoomkiisa, haddiina Allah rumaynin alle waa uu idin halaagi, waa uuna idin ciqaabi, waa uuna idin cadaabi. ayakiina mayna isdaalinina waxay ku dhaheen, haddii aad run sheegay Yuunisow warka caddee, waa goorma ayaa nala rogi, goorma ayaa nala ciqaabi. wuxuuna ku yidhi 3 beri gudahood haddii aad alle ku rumayn weydaan cadaabka Ilaahay ayaa idinku soo degay. haye ayaa la dhahay, ballan baa la wada galay. 3dii beri waa ay dhammaatay. nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam qoomkiisa waa uu iskaga tegay, waa uu ka dhex baxay isaga oo aan wax idan ah ka haysanin Allah. wuxuu tagay xeebta wuxuuna raacay doon. qowmi Yuunus waxaa kor imaaday cadaabkii Ilaahay oo qiiq iyo daruuro iskugu jiro ayuu alle korkooda keenay oo la rabay in lagu halaago. waa ay arkeen, indhahooda ayay saareen, waxayna garowsadeen inay dulmi ku jireen oo ay baadi ahaayeen. bannaanka ay u soo baxeen dhammaantood, waa ayna toobad keeneen. Ilaahay bay wada rumeeyeen, si dhab ah ayayna Ilaahay u rumeeyeen. waa ay ka shalaytoodeen wixii ay sameeyeen, waxayna garteen in nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam wixii uu u ballan qaaday iyo wixii uu ugu yeedhayeyba ay xaq ahaayeen. markaas bay Ilaahay baryeen oo dhaheen, Ilaahayow naga badbaadi cadaabkaadan, adiga ayaanu ku rumaynay, waana kuu toobad keennay, wixii aan samaynayna waanu ka shalaytaysannahay. markii alle subxaanahu wa tacaala uu arkay inay toobad keeneen oy rumeeyeen, qalbigoodiina nadiif yahay, wuxuu alle ka rogay oo uu ka celiyey cadaabkii korkooda la keenay. arrin cajiib ah ayaa dhacday. nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam doontii markuu raacay
badda dhexdeeda markay marayaan waxaa kharibantay doontii uu saaraa, waxayna noqotay in dadka qayb ka mid ah la daadiyo. waxaa la dhahay qofba mar baa la tuuri, laakiin yaa ku hormari baa taalla. waxay noqotay in la qori tuurto. markii la qori tuurtayna waxaa soo baxay nabiyullaahi yuunus calayhi salaam. waxaa la wariyaa 3 mar ayaa la qori tuurtay baa la dhahaa. caado waxay u lahaayeen markii ay doomuhu hallaabaan oo kale waxay odhan jireen dadkaasi sida la wariyo waxaa ku jira meesha qof baxsad ah, yacni adoon sayidkeedii ka soo carartay, islaan ninkeedii ka soo carartay, ilmo waalidkii ka soo cararay, qof habaaran baa la socda. marka waxay dhaheen yuunus adigu nin fiican baa tahay, macquul ma ahaan inaad adigu tahay. 3 jeer ayaa lagu celiyay dhahaan, laakiin 3dii jeerba isaga ayuu soo baxday. markii nabiyullaahi yuunus la tuuray isla markiiba waxaa liqay malay, caloosha ayuuna gelayay. nabiyullaahi yuunus meesha ayuu ka dhawaaqay laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. wuxuu gartay inuu qoomkiisii kasoo tegay amar la-aan, waayo rusushu iyo nebiyada ilaahay ma hijroodaan oo qoomkooda iyo dadkooda kama tagaan ilaa inuu alla amro mooyeene. waad ogtihiin nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam 13 sano ayuu magaalada maka isaga iyo asxaabtiisa oo la kadeedayo la cadaabayo uu jiray. wuxuuna hijrooday oo keli ah markii alle u amray 13 sano ka dambe. nabiyullaahi yuunus wuxuu gartay inuu gaf galay, ilaahay buuna meesha oga laabtay. malaygii wuxuu ku tufay oo uu alle ku amray inuu geeyo xeebta meel bacaada ayuuna ku tufay. wuxuu allana subxaanahu watacaala ku amray nabiyullaahi yuunus calayhi salaam inuu ku laabto qoomkiisii iyo magaaladii uu kasoo tegay. nabiyullaahi yuunus waa uu laabtay isaga oo filaya in qoomkiisii la halaagay oo ciqaabtii iyo cadaabkii ilaahay kusoo degay, laakiin wuxuu u imaaday qoomkiisii oo dhammaantood muslimay, mu'miniin noqday, adeecay ilaahay oo u hoggaamsamay. cajiib. wuxuu ka tegay ayagoo dhammaantood kaafiriin ah, oo xataa wuxuu ka waayay hal qof oo dhaha laa ilaaha ila allah. haddana wuxuu ilaahay subxaana watacaala u soo celiyey ayakii oo dhammaantood yar iyo weyn, rag iyo dumarba ay noqdeen mu'miniin. sidaa ayaa waxay qoom yuunus ku noqdeen qoomka keli ah ee dhammaantood wada rumeeyey nabigii ama rasuulkii alle usoo diray. sidoo kale waxay noqdeen qoomka keli ah ee intuu ilaahay subxaana watacaala cadaab iyo ciqaabtiisa uu kor keenay uu ku halaagi lahaa haddana ka fayday oo uu ka celiyey. wuxuu alla yidhi subxaana watacaala falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunyaa ومتعناهم إلى حين. انت يا ندي سو غدبيي فضلا هدي aad ka heshay la sii wadaag walaalaha kale khayrka jecel. sidoo kale hadii aad nagu cusub tahay soo biir oo subscribe leh channelka dacwada diinta ee islaamka. mahadsanid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب.